badan laga hadlaa dhalinyarada faraha badan ee kumanaanka iyo kumanaanka ee sanad walba u tahriiba amaba isku daya inay u tahriibaan wadamada midowga Yurub dhalinyaradaasi Soomaalida oo qaar fara badan oo kamid aanay nabad gaaninba meelihii ay u socdeen taasi badalkeeda waxa jira dhalinyaro fara badan oo markii dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan ay ka qabsadeen wadamada cusub ee midowga Yurub ee ay magan galeen iyaga iyo qoysaskoodu dabadeedna dib ugu soo laabta deegaamadii markii hore ay ka dhoofeen bal haddana la daawada sheekadan oo ku saabsan nin dhalinyaro oo la yiraahdo Jamaal Axmed Maxamed Jamaal waxa uu kaga dhoofay magaaladan Hargeysa isagoo 9 jira dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan ayuu iiga sheekeeyo ka qabsaday qurbaha oo ay ka mid tahay isagoo xabsiye fara badan ka soo galay wadanka Sweden ee muddada dheer uu ku noolaa Jamaal imika magaaladan Hargeysa ayuu kaga shaqaystaa taksiilanimo Jamaal iyo sheekadiina dhex martayna waxay ku bilaabantay sidan Jamaal aad iyo aad baan mar kale ku salaamayaa waad mahadsantahay in barnaamijka aad nagala qayb gasho magaaladan Hargeysa goorma timi xiligaas waxay waqti yar oo kooban oo Christmas time baan imowti 2 weeks baa la siiyay fasax school sanadkee baad markaa 2007 baa 2007 marka aan oo ka maqnaa wadanka ilaa iyo 69 barigan ka tagay wadanka anoo yar baan ka tagay imis jir maad ahayd Jamaal markaa halkan ka dhooftay 9 jir baan hayo adigu sagaal baan hayo magaalooyinka adigu waxa joogay miyigo xagga miyiga xoolo ku raaci jiray wadanka ayaan caawin jiray marka gartay marka dhulka miyiga baad ku noolayd miyiga waxaan ku noolaa xagga iyo hawdka gomburaha saacada jirta Hargeysa marka xaggaasaan ku soo barbaaray anoo yarday bacdeen marka hooyana waxa joogtay iyadoo magaalada ay joogto way shaqeynaysaa dukaan yar bay meesha ku lahayd ayayna ga tagtay marka ariga la raaci jiray oo la caawin jiray gartay marka 2006 baad ka dhooftay magaalada Hargeysa wadanka Sweden aad tagtay Sweden waxa tagay anigoo anoo yar baan tagay 9 aan ku tagay magaalada baad kaga noolaan jirtay Sweden waxaan ku noolaan jiray waxaan dhulka ugu qabo baan waqooyiga Sweden Umeå waxa weeye meel adigu barafka naabu hayo dhulkan aanu deganaan jiray aad uga duwan cimiladu isku simeeyay xagga markaan tagay waxyaalo badan maan igu cusbaa nolosha dhammaan way igu cusbay marka iskuulka xaggaasad ka bilowday miyaa Jamaal xaggaasaan ka bilaabay iskuulka xaggaasaan ka bilaabay waxbarashada markii noqoto madrasad waxaan ku dhigan jirnay xagga laakiin iskuulkii iyo laatiinkii iyo wixii kala waan xaggaasaan ka bilaabay waatay xaggaasaad iskuulkii ku bilowday maadaama aad ka tagtay markii hore meel miyiga oo gumburaha oo Sweden aad toos u tagtay dhibaatooyinkii ugu waaweynaaye caruur ahaan ama ilmo ahaan kaa hor yimi maxaad ku tilmaami lahayd Jamaal waxaan aduu tolku maanra ayaan maartay tolka habaryartay raabtiga baa ayaan raacay waatay wayna xagga ma joogtay marka habaryartay baan uu la soo koray xagga sanska joogay waxa aad iyo aad baan maartay hooyana xiiseynayay maartay hooyo aan ka maarmi kari waayo waxaan ku yiri dadku maartay iskuulada marka joogay qof walba maartay hooyadii dadkiis anu hooyo aad iyo maartay qalbiga dhigsanay marka anu wallahi murugaas ka yarno laakiin dagaal iyo marka wax isku bedeshay oo inaan maartay iska qalqaali baan noqday iskuulkii baan ka xiiso dhaco dhalinyarka laba shaqeeyay musbarno waxaan ku aygi baaba maartay iyaga markaa la xidhatay aygi baan la xidhay saan aygi la xidhayna marka waxay noqotay inaan aygi maartay aan full time aan ka dhigto anoo yar marka waxyaalo dhalinyaradu markaa ma Soomaali bay ahaayeen Jamaal Soomaali way ahaayeen iyo qaar kale bay ahaayeen marka Soomaalidii ayuu badnaa laakiin marka iskuulkii waad kaga hadhay iskuulkii waan kaga hadhay
iskuulkii waan ka saaqay gebigeyga waxaan ku yidhi iskuulkii markaan uu joogno dee anagoo iskuulka rabshad iyo balaayo ka wadna mooyaane intaasaa maaragtay saasaan ahay marka waxay xilligaasna waxay xilli aduu ilaa 13 jir 14 jir 5 xeerarkuna waxa weeyaan qof waxa xeerku wuxuu qabanaya ilaa 16 markuu yahay ay ku qangaarayaan marka xeerkii markuu qaban waayay xeerkii meesha yaalay dawladda oo haddaad khalad samayso ama dembi gasho laguma xidhi karin sharcigu ma qabanayo xaafadiina waa anigana dee waan ku mudaarado maaragtay waa lii taag waayay iska qaqaali waan ahaa hadalkii maaragtay dhig buu maan dhigay marka waxaan ku dambeeyay gebigeygaba inay dawladdu anoon sugeenba iskuulka intay ugu timaado dee maalin ay ila kala boodon gebigeyga xaggee lagu geeyey markaa waxaa lagu heystay horta falal baa lagu heystay waxyaalo yar oo yacni adugu dee tukaanayo waxyaalaha adugu burcad yar oo iska qaqaali baa marka way alaaba xadeen miya alaabo la qabqabtay iyo tukaano la dhacay waxyaalaha marka badanka anigu dushu maan keeni jiro dadka waan la socon jiray marka anigu meeshii baa lagu arki jiray badanka markastay rafada dhacday dawladdiina markaa waxay gaadhay go-aan inay mataqaana maadaama anigu reerku anigu dee anay horta anigu markaan xaggaa jooga family ilmay fahmay xaaladdan ku jiray inay ahayd mataqaana iyo waxyaabaha nolosha aad tabayso miya noloshan cusub maad quraanka akhrisato maad guriga iska fadhido maaragtay guriga iskuulka marka tagtana guriga iska joogo intaas u bahay moogta laakiin inaan dareenkan yaray maaragtay qalbi xagga hoose inaguna dabeecaddeena waxa weeyaan dareenkii waxa kama hadlana bay Soomaalidu ma moogta qof walba waxa weeyaan oo marka waxaad u jeedaa ilmihiina caddayn maayo wuxuu rabo waalidkiina ka mas'uulka ahaana lama sheekaysanayaan waalidkuna uu iska yaraa adagi oo lama sheekaysanayaan hadday xataa la sheekaystaan waxay kala sheekaysan maxaan ku raahdaa waxay kala sheekaysan karaan wixii maaragtay dusha sare laakiin wixii maaragtay xagga hoose cimilada ku saabsan nature-ka lagu nool yahay ayaan wax badan ka weyn ayagu maanta haddii la eego dee duruufaan carruurtan yar maanta ku nool waxa weeyaan cyber wall iyo adduunka lagu nool yahay oo hawadan iyo Facebook iyo waxyaalahan cusub ee maaragtay soo kordhay dee beriga way yaraayaan laakiin haddii aanu maaragtay family aanu dee reerkii aanay la jaan qaadayn xaal maaragtay حياة نوشة اللي يقولوا لي ماشى وحنا قلنا سألنا عروتي حتى إننا نفهم كريم بدأ إنه مرت الجداروك على الضحية بقى مركا أنا قولي اسمه نفهمين شرعي جينا هذا الكيس وده الأولاد مركا واحد يوقع صبتين يلبوا ده ما حقيقة جيان مركا واحد جيان مال بيجيان عروتة الوحن أنا هي عروتة مال على قوس كينو ولا جاك حي قوس كينو ولا جاك حي جوال كينو ولا جاك كونفور على جاك وراه koonfurtan joogayna waxa la igay dad matqana anu waxaan ahaa guriga waan ka yara baxbaxin jiray deemaan maqli jirin waan iska yara qalqaalaha waan yara dagaalan jiray laakiin dadkan la igay baa ahaa maartay dad cilado kale iyo alaabo kale shandadooda ku haysta moogta marka dadkii waa wixii waa la isla wadaagaya qof walba intuu hayay magaranaysa marka dhalinyartii baa meeshii baa noqotay alshaan wax ku caawin lahayd dhibaatadaadii mid kaloo ka daran bay ku sii beeraysaa mid ka sii daran de alaabaya qurun iyo sheekay waxaanad weligaa maaragtay aanad dhigaha aan ku soo dhacayno maaragtay adduunkaaga baan imis jir maad ahayd Jamaalow markaa 16 jir baan gartay iminka imis jir maad hadda 8 maan ahay 8 markaa 8 jirkaas adigu waqtigii aan xagga joogay marka isku geelaa 18 sano aan joogay 18 kaasna wallahi anigu waxaan ku wadanka qurbaha waxaan muruga mooyaane wax alaalo wax kale oo matqana aan oran karo de dhalinyarada markaa maanta isku biimaynaysa Soomaalida safarada adag u galaya si wadanka Sweden iyo wadamada kale la midka ay u tagaan maxaad ku oran lahayd anu waxaan ku oran lahaa horta haddii la doonayo mataqaana haddaad doonayso inaad ifi akhribaad ku liibaanto horta jannada waxaa la yidhi haddaad janno doonayso waxaad ka helaysaa hooyada cagaheeda hoosteeda soo maha marka haddii sidaa ay tahay ka waran adigoo intaad tagto guri kale amba adduun kale aad tagto dee meel kale aad tagto oo dee hooy kale ile hooygaagu waa hooygaagii moogte adoo hooy kale intaad tagto isla haddaba xagga ma liibaanto taala xagga ma wax ka helaya waxay noqonaysaa markaa inaad islaan kale amba qof kale aad hooyeysatad inta hooyada garabka aad baar ka jeediso aad xagga aad tirado xaggaasaan iska joogaya Jamaalow markaa hooyo ma la nooshay iminka anigu hooyo waa la noolay dalkaygii hooyana waan joogaa waxaan ku dalka
waxa weeyaan cusurnimada jirta ma waxa weeyaan mid hoose tan la yiraahdo dold tan hoose secret weligaa kamid ma noqonaysa dee alashaan tooda wala dad ku dhalatay wadanka dad waxa ku jira ku dhashay oo waalidkood ay ku dhasheen oo xataa kuwii dee waalidkood baa carruurtooda ku dhasheen carruurtoodu kuway dhaleen ayaa ilaa maanta la weydiinaya hebelow hadda waa dad second generation xagaad ka timid baa lagu leeyahay maxaq baa lagu leeyahay xagaad ka timid hadda waxaa tahayba waalidka iyo waalidkoodba way ku dhasheen wadanka su-aasha taagna meesha waxa weeye xagaad ka timid waxaad dareemaysaa inaad si kasta haddaad mataqaanaa si kasta haddaad markaa ugu dadaasho dee qof walba xaggu ka yimid uu garanayaa runtaa fiican waqti marka ayna meeshaas wallaahi bilaa kadeed mooyaan wax kaga jira jamaalow meeshii carruurta lagu haynayay baa lagu geeyey 16 jir baad ahayd maxaa markaa kuu raacay kaaga dambeeyey waxaa ii raacay iga dambeeyey waxaan ku jiray meeshii dadkii baan isbaranay dad xun aduu waxay ahaayeen dad mataqaanaa iska wada ciladooda ay badan tahay anna waxaan sidhi haddaba haddii haddaad guulaysanayso de maaragtay waxyalo degdega ku guulayso lacagtii yareyd iyo wixii maaragtay laysiinayey dee anugu dawladdii waan ku madan adoo anugu mashiinkan waxaan dawladda laayay xeerka iyo mataqaanaa sharciga waan diidanaa waan ka soo horjeeda waxoo dhan baad ka soo horjeeda waxoo dhan ka soo horjeeda marka anagu gang markaan ahayn iyo waxyaalahaasaan ku jijiray marka dee annagii waxaan idhi taayadun baan wadano waxaan ku idhi mugdi baan ku jiray wallahi runta fiican mugdigaan ku jiray wuxuu geliyey maaragtay heeraan mataqaanaa dee dagaalo iyo mataqaanaa suuq yaroo aan jirinoo dee suuqii midooba hadduu noqdo aad garanaysaa suuqii maaragtay suuqii baa markaa cidhiiri noqday oo asxaabdi dad badan baa meesha ku nafwaaya dagaal badan baa jira marka dagaalkii wuxuu noqonayaa cabsidaa lagaa cabsanayn baad ku nooshay jamaalow goormaad markaa kama dambayntii go'aansatay inaad halkan ku soo laabatid ma adigaa go'aansaday mise cid kalaa kugula talisay walaa waxaan go'aansaday markaan runtii xaqiiqdii markaan fahmay waxay ahayd asxaab qaaraan lahayn inaan saaxiibnimo maaragtay ayaa midi baa ku dhacdo waaye oo muxuu ahaa alaabtii wixii iraan ku jiray raac buu yidhi anna hawshaa waan ku raaci doonaa marka 2006 markii meeshii la geeyey xeradii waan kusii qalqaaligaroobay anugu dadkii markaa waxay noqotay inaan kusoo laabto gobolkan ka yimida uumiyo laga soo mustaafriyey ilaan meesha dhibaatadan ku haynay baa mooti bato gobolkii waa inaga mustaafriyey markaa dib baan ugu noqday asxaabtii baan ku noqdo markaa asxaabtii ayaan dee sidaan aan soo dhaweysto maaragtay gebigayga wadda aan isku aad maaragtay ayagii baan businesskii iyo wixii anagoo soo gelinay qurunkii marka waxaa dhacday anigii baa laysoo wareeray maaragtay waa lagu soo weeraray anigii baa laysoo weeraray oo markaa kuwan asxaabta kuwan soo dhaweysanaya aanu saaxiibada ahaan jirnay wadi ayaa muxuu ahaa ilaa anigii magaalada ka maqnaa 8 sano ka yara maqnaa intaan meesha xerada ku jiray xaggana meeshii la geeyey xaggana waxaan ka dhigtay high schoolka ka yara dhigtay oo insha Allah dee high schoolkaas aan ku deegaan ka qaatay qalin jabis 2007 markii Hargeysa mid aan noqday ayaan qalin jabiyay walibana mugdigii aan ku jiray hadda ka waran anoo alaabtii iyo qurankii ku jira labadii baan isbaabiyo haddana waa Ilaahay bay fududiyay markaan qalin jabiyayna xaggii waanigii iska noqday shaqayro maartay jajabaan wadwaday dee jajabkii waxaan ku dhigay tii kala ka badatay tii kale suuqa ganacsi xaraamta ay lacagtaas khiyaaliga hayda sixirka tii baa ka badato sixirkii baan markaan iska aaminsan ku jiray sixirka lacagtaas sixirkaan iska shaqaysanaya oo ay macaanatay dhagantay ayaa alaabtii iyo wixii aan iibinayay baa maartay lagu saqajaan marka qaar waxa la isku dayin la dhaco anigii baa la dhacay markii la dhacay baa waxa dhacday inaan qoladii dhacday baan anu adkaysan kari waayay afartoodii baa intaan u yeedhay ayaan idhi haddaba soo qaatan alaabtiinii barkii kale idin hadhay iyo mataqaana yaroo lacag aan meesha ku hayay gurigii markay yimaadeen ayaan ciil aan ugu qabay ayagii ayaan saddexdii baan biriyey saddexdii baan biriyey waad biraysaa marka waxaa dhacday aniga hanjabaal aan ku noolaayo maaragtay raggan inta isku kay tageen ayaa maalintii ka horeysay markaa ma middoon baad ku dhufatay saddexda mise waad biraysayba walaal waan midiga dhacday waaye sidee markaa dhaawac ugu soo gaaray
ولا wuxuu soo gaaray aduu mid ilaa calooshida ilaa keliyihii magaranaysa ayaa asagu meesha uu ku dhacay markiiba keliyihiisa ayaan dib ugu celinay marka waxa meesha dhacay way isku kaytageenoo waxay isku kaytageenoo waxay xilli ay ku soo beegantay midqana ramadaanti ramadaan bay subxaanallah waa xasta wallahi way maalinta waxa dhacday marka ramadaanti taraawixii ugu horeysay la tukanayay ayaa maalinta shaydaanka ibliiska waa maanta la qabliga hay maalintii baana la xidhay anigi maalintii la xidhay ugu horeysay ramadaantii 2001 markay ahayd xilligan ayaan anigu waan yaabay qosol waan fahmi waayay bacda anigii baa ismoodina shaydaankii ahay mawt ilaan waa maalintii la xidhay mawt dadkiina markaa dhaawacan geysteen inay nooleyn dhintaan ma kala garanayn laakiin waxaan ogaay in aad u dhaawacmeen maxaa lagu xukumay markaa waxaa laga xukumay walaal alxamdulillah inanka uu noolaaday afta kama bixin dhiig aad u dhiig baxay laakiin saddex aduu 4 litir baa ka dhacay 5 hadaba binaadam afarteedoo ka baxda dan ilaahay markii naftu way ku jirtaa kii kalena sababadun baan afoobay midna qoortan ka jeexay xaggan oo maal xididada iyo wixii mari oo dhan la waayay marka waxa soo maartay waxa soo hadana ilaahay baa badbaadiyay xukunkii walaal wuxuu noqday 3 sano 8 bilood baa la xukumay markaa ma soo dhamaysatay xariga waqtigii waan soo dhamaystay markaan waqtigii soo dhamaystay waxaan meesha ku arkay kale xeradii anagoo qalqaalnimadii carruurtii mooyaane xabsiyadii daadu 9 xabsi oo soo kala maray oo dagaal uma ku jiray ilaa 9 xabsi ay soo gashay 9 xabsi magaalada gudaheeda waxaan ilaa Kumla ilaa Hal Tidahol orshise u noolyihiin waan arkay mawti marka qolo walba xabsi kastaan imaadana waxa la weydiin jiray ilaa anna waxaan nin iska burcadan haan jiray walaal mawti way aniga la yarki jiray inaan ahay product fiican ma garanaysaa qofta aan waxtar u leh way finaanad kasta waa lagu soo furay ya waa anaga manala ciyaaraysaa manala wadaysaa marka waxaan waxa keenaysaa cabsi mawti marka kooxda loo socdo cabsiga waxaad ka cabsanaysaa ayaad kooxda ku dhex dhuumanaysaa anaga weliga waxaan oolaa anoo haddana maarta ka dhacsan baan haddana ilaahay haddana iimaan yar baan lahaa iimaan yar oo maarta ilaahay baan haddana ku qalsanahay ma baqanayn xaqayga waan ilaalin jiray dadkana maartana dhibaato ulmanayna haddii maartay waan iska nabadgelin jiray anoo haddii la nabadgeliyo anoo iska nabadgelin jiray saas uma daacada way kama dambeyntii goormaad halkan timi horta Hargeysa xaggan Hargeysa waxaan 2014 baan mid bishii labaad ma adiga markaa go'aansaday inaad timaadid mise ana go'aansaday cid kale kugu riixday waxay horta caawiyay xaafadda reerku caawiyeen walaashay way caawisay oo maartay dad badan bay la dardaarmay runta marka la eego oo aan u dhagan uglaadaan aan maqlay hadda waxa weeye dadkan bari horaan ka carari jiray magaranaysa reerkayga familygayga ayuu maanta maqlay mawt hadalkooduna waxa weeye wax badan ma ka jira marka wadankii ma iskeeray aadid ma iska soo joogtid أنا واحد بدي ستريس كان يو مارت واحد قحر كان ومتى يوم سكيرتي أنا ودك يسكتوا حبس جينا واحد كل سنة وتشري وأنا بستي إنا كي دتك أردن هرتا أنا ودي خيال المدني بنتني واحد كولا لو واحد أنا وان قدح بحمود. ويا جماعة عمرك هالكن تيمي أضاع رورات كله وفتي إنكستو لبدي يكون يتضبطي سادي شكل أدمرتمي مو هين وطن أتكوك عنتي هالكن سيد ولا قبصت حاجة نورش السلا ولا قبصن احتمالك ورث ويجورات كيد ومارتي وحيالها عند الدون كمركل يقوم بان مارتي وحيره مارتي حلقة هذا السيستم النظام كلونه ليه iyo hadeen qoto maartay biyaha socda dabaashan iska dabaalnay meelaha barkadaha iyo maartay waxyaalahan maartay fududeynayna waxyaalahan materialkan wax yare makhluuqa ayad weyday waxyaalahan waan ka waayay waxaasna maartay xagga dadku waa wax uu la weeyay marka waraysa marka wixii tiimirkan ka waayay baan hadana waan iska yara samray marka aduu aakhirkii nolosha toban dareemay waan arkay dadkii salaadii la tukanayay eedaankii waxaan ku diintii horta diintii soo noqotay diintii waan ku soo laabtay maartay xarigii diintan qabsaday xariga markaan qabsaday xaggaas nolosheeda ka bilaabtay wallahi way maxaad sidabaad noloshaada ku dabartaa gaarigan aad wadataa taksiga hadda waxa weeyaan waxaan hadda matqanaa isku ergagaya waxa weeyaan gaariga maskeerooda xaafadii wadankiina dee adigu
لوجو يروان كله هاي حاجة إن شاء الله أدو حيرو مشروع عن كهلا مويانة أدو هبلاه مرت وحيرو صدر وراهي مويانة لكن بدن كعد أنا ولا شنو أقول جورس مرت حاجة سباكاس أنا ما فرم هاي مركا إحنا قلت جارين يربان هذا ما قلنا كسوقات قلنا لا كه ما شاء الله عكتي من هاي الموتة مركا الحمد لله ما شاء الله نولش هذا مركا ودبرة مالنتي ودبرة والله الحمد لله وحويا أدو waxaan iska bixiyo deyntiisaan iska bixiyo mooyaane laakiin lacagteeda caadi weeyaan hadda xaas ma yeelatay Jamaal mise waa kalidaa weli wallahi waxaan guursaday sanadkii hore markaan imid adigu xarigii markaan ka soo baxay bishii labaad bishii afraad baan imid Hargeysa afraad markaan imid joogay 6 bilood ayaan muxuu ahaa xashkii baan tagay alxamdulillaah waxa diinta marka hooya waliba nasiib aan u lahayn aan gaxayaan xashkii geeyo oo yuuda aysan jirtay deena way say ducadeeda horta hooyada ducadeeda waa qaale maartay marka ducadeedii waa la aqbalaa markastoo markana way yuuda aysan jirtay in aanu noqdo maxrumkeega xashka geeya ilaahayna uu naga aqbalo waan wada tagnay bishii tobnaad markaan ka soo laabnay xashkii 11aad guurkii waan guursaday oo waxa marka saxaas yeeshay mas'uuliyad dheeraad ay soo fuushay marka alxamdulillah marka wali caruure ma ku dhalatay mise waa ay walaal wali hadda insha Allah dawan dadaal ay maartay alxamdulillah ya risqa xaqi ilaahay baa la maartay ilaahay ma bixiya marka insha Allah uur bay leedahay ma sha Allah